diriyo daarood buu fadhiyaa caawa kulligeen sore wadanahay xilka weyn baanu rajaynaynay isaaq iyo 17 qabiil oo kala Soomaaliya ku nool horta Cabbaas Muuse dir waxa uu noqonayaa carruur dir waa afar xafladan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa loogu mahadnaqayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale loogu ducaynayay Professor Axmed Maxamed Muuse oo dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay madaxa unuga xiriirinta dardargelinta iyo mudnaanta waxqabadka hay'adaha dawladda ugaasha xildhibaanada jananada ciidanka bahda saxaafadda gabdhaha waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaad dabadeed munaasabadda xafladan waxay ka turjumaysaa Professor Axmed xilkii loo magacaabay inaynu madaxweynaha ugu mahad celino isagana ugu ducayno haddaba waxaan leeyahay marka ugu horeysa caawa xafladan waa la isugu yimi diriyo daarood buu fadhiyaa intii inantu dhashay iyo intii wiilku dhalayba labaduba dir bay noqonayaan caawa haddii ilaahay qadarka ducadu waa maqbuula waa bil Ramadaan way idin soo dhaweynayaan waxa weeye waxaan u ducaynayaa Ramadaanta waa dareemi karaa dadku ballamay leeyihiin afurey leeyihiin xaafadihii bay la afurayaan inaad soo ajiibtaan runtii wax weyn bay ka turjumaysaa ilaahay ajiibka soo ajiibteen ilaahay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda horta haydin siiyo halka waxaa fadhiya xildhibaanku uu sheegay waa deep state dowladdii qarsooneed ee Soomaaliland baa meesha fadhida anigu idinka mid baan ahay aabbahay nabadoon buu ahaa awoweyna nabadoon buu ahaa reesanaaga marka Axmed Maxamed iyo Maxamed nabadoon buu ahaa Muuse nabadoon buu ahaa laakiin aniga ayaan nabadoonnimada qaatay waan ka baqday hawsha waxaan sidii markaa eegay culeyskeeda iyo dadaalkeeda iyo bambixeeda kama bixi karo inaad idinku ku dhiirateen oo aad hawshaa dhabarka u ridateen oo u dad seegtaanna runtii wax weyn bay ka turjumaysaa waxaan waan ka baqday oo aan sidii iska xamaalo ayay idinku babac dhigteen marka horta taasi baa hawl weyn baad haysaan Soomaaliland dowladnimadeeda laga soo bilaabo sagaashamaadkii udub dhexaad baad u tihiin nabadeynta udub dhexaad u tihiin isku haynta udub dhexaad u tihiin dib u heshiisiinta waxaad udub dhexaad u tihiin isku soo jiidka waa waxaynu Soomaalida kale kaga duwannahay dadka halka fadhiya horta waxa kaloo dad Soomaalida kale oo kala midaysan laakiin waxaan kaga duwannahay dadka halka fadhiya taaka soo koob halka waxa loo fadhiyaa waxa filayaa mahadnaqa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aniguna idinka idin mahadnaqaya intiinan madaxweynaha mahadnaqaysa ayaa aniguna idin mahadnaqaya anigu waxa kaloo ku dari lahaa reesanaag baan ahay xagga kalena reer Hargeysa ah marka bridge isku xidha bunta isku xidha bariga iyo galbeedka ah